tobannaan kun oo mudaaharaadayaalaha ayaa isugu soo baxay waddooyinka jasiiradaha Kanaari ee dalka Spain si ay u dalbadaan isbeddelo lagu sameeyo qaabka dalxiiska furan oo ay sheegeen inuu buuxdhaafinayo jasiiradaha Atlantiga. qiyaastii 750 kun oo qof ayaa ku biiray mudaharaadada sida ay sheegtay warbaahinta Isbaanishku iyadoo soo xiganaysa wakiilka dowladda dhexe ee jasiiradahaasi. dadweynaha ulaya caleemuhu ayaa buuxdhaafiyey waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee dhammaan jasiiradaha toddobada ah iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay kaga soo horjeedaan dalxiisayaasha xaddaafka ee jasiiradahaasi booqanaya. ma aha fariin ka dhana dalxiiska, laakiin waxaan ka soo horjeednaa qaabka dalxiiska ee aan faa'iidada u lahayn dhulkan oo u baahan in la beddelo. mid ka mid a dibadbaxayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters intii lagu jiray socodkan. mudaaharadyo kooban ayaa lagu qabtay beelo kale oo ka mid a jasiiradaha iyo magaalooyinka kale ee Isbaanishka. dhammaantood waxaa soo abaabulay kooxaha ama hay-adaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo deegaanka ka hor fasaxa xilliga xagaaga. 20 ka mid a kooxahan ayaa sheegay in dalxiiska oo buuxdhaafiyey jasiiradahaasi uu keenayo qaab dhaqaale oo waxyeello u geysta badqabka dadka iyo deegaanka. waxay rabaan in mas-uuliyiintu ay xadidaan tirada dadka soo booqda goobahaasi. jasiiradahan oo ay ku nool yihiin 2.2 milyan oo qof ayaa waxaa booqday ku dhowaad 14 milyan oo dalxiisayaal ajnabiya sanadkii 2023, taasoo ka dhigan 13% marka loo eego sanadkii hore sida lagu sheegay xogta rasmiga ah. maamulka jasiiradaha ayaa ka walaacsan saamaynta ay ku yeelanayso arrintani dadka iyo deegaanka, waxaana la filayaa in sanadkan la ansixiyo sharci qabyo ah oo arrintan lagu xadidayo kaasoo daba socda cabashooyinka dadka degan jasiiradahan. madaxweynaha jasiiradaha Kanaari ayaa jimcihii sheegay inuu dareemayo faan in gobolku yahay meesha ugu horreysa ee loo dalxiis tago ee Isbaanishka, laakiin wuxuu qiray in kantaroolo badan loo baahan yahay maadaama uu dalxiisku sii kordhayo. mudaharaadyada ka dhanka dalxiiska ayaa ku batay bilihii lasoo dhaafay guud ahaanba Spain oo ah dalka labaad ee ugu booqashada badan adduunka, taasoo ku kaliftay mas-uuliyiintu inay isku dayaan sidii la isku waafajin lahaa danaha dadka degan goobaha loo dalxiiska tago iyo shaqada waaxda faa'iidada badan leh ee dalxiiska ee dalkaasi oo ka dhigan 12.8% dhaqaalaha Spain. jasiiradaha Kanaari oo ku yaala xeebaha waqooyi galbeed ee Afrika ayaa caan ku ah qorraxda sanadka oo dhan, taasoo soo jiidata malaayiin qof oo soo booqda sanad kasta, iyadoo 10kii qof ee degan jasiiradahaasi 4 ka mid a ay ka shaqeeyaan dalxiiska. ka hor intii aanu cudurka faafa ee COVID-19 aanu jilbaha u dhigin safarada caalamiga sanadkii 2020, dhaqdhaqaaqyada mudaharaadada dalxiisayaasha lagaga soo horjeedo ayaa durba ka jiray Spain, gaar ahaana Barcelona. kadib markii xayiraadaha safarka la qaaday, dalxiiska ayaa kor u kacay iyadoo Spain ay soo dhoweysay sanadkii hore in ka badan 85 milyan oo dalxiisayaala.